السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكم ورلك شعبك يوتيوبك أنا قناة عبد القادر حسن دولية أرجو ونكسن كلن كلا وحيس له. ما أنت بقولكم حنا قاعد لدونا رجعن كي أيولي هاي أقفك ما أنتي صاقلي أو ودنك جرملك دنك شرعي أما قفك هذا كعصب دونا يا مركزي إنه شرع قاطو هذا بقى rajadaadu halkay gaarsiisan tahay inaad sharci heshid maxay yihiin caqabadaha aad markaas la kulmi doontid intaasba waxaan ku faahfaahin doonaa muuqaalka haddaba haddii ay tahay markii kugu horeysay bartaan reelka shacabka youtube-ka aad soo booqato waxaan ku leeyahay waad mahadsan tahay youtube-ka kusoo dhawow youtube-ka subscribe inoo sar waa inoo muhiim waan inoo dhiirigelin sidoo kale asxaabtii hore ee youtube-ka ku xidhnaa dad ka mid tahay aad ayaan kaaga mahad celinayaa inaad waqti ku bixisid muuqaaladan inaad daawatid jarmalku waxa uu ka mid yahay wadamada markaasi Soomaalida ugu badan ee xilligan ay timaado oo marka qofka Soomaaliga markii uu doonayo inuu Yurub soo galo hamigiisu waxa uu yahay inuu marka koowaad uu tago wadanka Jarmalka sababtuna waxay tahay Jarmalka uu ka furfuran yahay waana markaasi ka qaabilis wanaagsan yahay dhanka kale wadamada kale ee Yurub iyadoo qofka Jarmalka soo gala ee markaasi qaxootiga ah magangeliyo doonka markuu wadankan uu soo galo uu fursado badan uu haysto kale marka la fiiriyo in markaas qofkaasi uu interview galo sharci qaato processadaas uu maro horta marka ugu horeysa xilligan hadda waxa bilaabanaya oo markaasi bishan hadda lagu jiro dhamaadkeeda dhici doona wadankan doorashada wadanka markaasi loogu soo dooranayo madaxdii maamulka wadankan maadaama aysan hadda ay xukuumadii jirtay ay burburtay oo xukuumad aysan jirin laakiin bishan dhamaadkeeda ayaa markaasi la rajeenayaa in markaasi xukuumad cusub la doorto hadii marka xukuumad cusub markaasi ay timaado mar walba xukuumadaas cusub iyo waxay la timaado ayay marka rajada dadka qaxootiga ay ku xiranta marka ugu horeysa laakiin si ahaan markaan fiirino xilligan hadda lagu jiro ilaa ma doorashada laga galayo ilaa ma markii doorashada la galo wax yar uun kadib adii xukuumadda cusub haday timaado intay fariisanayso processka intuu iska bedelayo waa waqti laakiin adiga waxayba noqotaba isla markiiba marka ugu horeysa sharciga isma bedelayo laakiin xoogaa bay qaadan kartaa laakiin ilaa intaasi intii marka ay ka socdo intii uu ka socdo macnaha processkaas dadka qaabilitaankooda rajadoodu aad ayay u yar tahay waxaana markaasi ay ku xiran tahay qof walba iyo awoodiis macnaha inaad sharci ka heshid wadanka ama jawaab si fudud aad ku heshid oo kale oo markaasi sharci lagu siiyo runtii waxay ku xiran tahay qof walba iyo kartideeda awal dadka Soomaalida markay wadankan Jarmalka yimaadaan dad ana markaasi aanan interview fiican diyaarsan oo kale qof waxyaabo qaar intuu iska sheego meesha iska tago ayaa sharci iska siin jiray wayna iska fududeed runtii dadka aad looma dhibi jirin laakiin hadda waxay noqotay qof walba iyo kartidiisa inaad markaas interview fiican aad la timaadid in sabab sax ah oo lagugu qaabili karo aad sheegtid ayaa laftirkeeda waxay u baahan tahay awood aad markaas adiga muujisid oo ah macnaha inaad qof hadal badan tahay qof aqli badan inaad tahay qof wax abuur leh hal abuur leh macnaha inaad tahay ay taas ka caawinaysaa sababtoo ah qofka markuu ku wareysanayo qofka hal abuurka ah ee wax alifi kara ama barnaamij dhisi kara oo maskaxiyan ahaan u dhisi kara waxay u noqotaba iyo way kala duwan tahay qof aan barnaamij aan abuuri karin macnaha barnaamij abuuri karin waxa kamid ah waxaan ka wadaa hadaan si faahfaahiyo qofka interview markuu galayo inuu faahfaahin fiican sheego oo lagu qanci karo badanaa dadku waa ku yar yihiin qofna wuxuu sheegi karaa faahfaahin fiican oo markaas qofka interview ka qaadayo oo ku qanci karo oo laga yaabo xitaa qofkaas jawaab kale inuusan qofkan weydiin oo san ku soo celin laakiin dadka marka fiirisid waxay u badan yihiin dad aanan hal abuur lahayn oo aanan sameyn karin interview macquul ah oo qofka ka soo horjeeda ee marka interview ka qaadayo oo ku qanci karo aanan sameyn karin marka isku day ina markaasi aliftid interview fiican badana deganaanshada waa muhiim inaad deganaansho aad muujisid marka interviewga galaysid isku kalsoonidana muujid sababtoo ah kalsoonida waa waxa koowaad ee qofku markaasi guusha u horseeda mar walba marka aad adiga isku diyaarinayso interviewga isku kalsoono marka ugu horeysa
teeda kale interviewga muuqaalo badan oo aan uga hadla ayaa jira dhalinyaro badan oo soo weydiisay oo qaybteeda Instagram-ka kale iga soo weydiiyay ayaa jira muuqaalo interviewga ku saabsan oo wax badan runtii ka saacidi kara oo aad u tira badan ayaa markaas ku jira barteeda horyaalka shacabka YouTube-ka muuqaaladu way badan yihiin adigu si tartiib ah u raadi waad helaysaa marka kalsooni badan muuji insha Allah waxaan rajeynayaa in dadka hadda marka rajada fiican leh marka interview inay galaan uu Ilaahay u fududeeyo inta muuqaalo kale oo xiiso leh ku kulmi doon waxay ka tagayaan sidaas iyo nabadgelyo